halkani waa qubanaha TV ku soo dhawaada barnaamijyadeena xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah mid kamid ah lafdhabartii kooxdii nabad iyo nolol ahaana gacantii midig ee Fahad iyo Farmaajo oo lagu xiray garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi waxa uu kamid ah saraakiishii ugu muhiimsaneed hay'adda NISA sidoo kalena waxa uu saaxiib dhow la hogaansimiye hore hay'addaasi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu kamid yahay ama uu kamid ahaa wasiiru dawlayaashii hore ee Soomaaliya Soomare ninka aan idin sheegay waa Cabdiraxmaan Dheere waa xildhibaan hore sidoo kalena xildhibaannimadiisii waxa uu ku waayay saaxiibtinimadii Fahad iyo Farmaajo xogaha laga helayo xarigiisii sidoo kale cidda ka dambayso xilli uu dib ugu laabtay magaalada Addis ee dalka Itoobiya ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kalena waxa kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu fashilmay kulan uu la yeelanayay qaar kamid ah ururada siyaasadda ee dowlad goboleedkaasi xilli uu hadal la yaab leh kaga dhawaaqay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxa uu qoondeeyay lacagta ay qaadan doonaan ururada siyaasadda sidoo kalena waxa lagu kala tagay kulan uu la yeelanayay qaar kamid ah gudoomiyaasha ururada Puntland waxaan idin soo gudbin doonaa xoga sira iyo sidoo kale kooxda Aaranjan oo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kaga adkaatay arrin ay isku hayeen ayaan idin soo gudbin doonaa xogaha kalena waxa kamid ah mid kamid ah xildhibaanadii taabacsanaa nabad iyo nolol oo fashilanayo howlgallada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale xilli uu ku biiray howlgalladaasi wararka qaar waxay tabinayaan in durbadiiba fashil uu ku soo dhamaaday sidoo kalena ay ku soo kala tageen isaga iyo xildhibaanada kale ee horkacayay ciidamada la doonayo in lagu xoreeyo deegaanada gobolada Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Galgaduud waa xildhibaan Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul oo kamid ah kutladii nabad iyo nolol sidoo kalena ahaa ninkii ka soo horjeeday nidaamkii sidoo kale qaabka loo wajahayo dagaalada lagula jiro al-shabaab waxa uu fashil ku tilmaamay ciidamada macawisleeda uu sheegay in ay carqalad ku yihiin nidaamka iyo sidoo kale dimuqraadiyadda Soomaaliya xogaasi iyo kuwa kale ayaan ku faaqidi doonaa qaybtan insha Allah balse aynu ku bilaabno wasiiru dawliga hore ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Dheere kana mid ah saraakiishii ugu muhiimsaneed hay'adda NISA sidoo kalena waxa uu ahaa gacantii midig ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu saaxiib dhow la ahaa Fahad iyo sidoo kale Farmaajo waxa uu kamid ahaa baarlamaanadii soo maray dalka sidoo kalena xubinimadiisii baarlamaankii waxa uu ku waayay saaxiibtinimada Fahad iyo Farmaajo ninkaan idin sheegay Cabdiraxmaan Dheere oo deegaan doorashadiisu ay ahayd magaalada Kismaayo iyo xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu maanta ka soo dhoofay magaalada Addis ee dalka Itoobiya waxa uu u socday magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa lagu xiray garoonka Jomo Kenyatta xilli uu doonayay inuu gudaha magaalada Nairobi uu soo galo sidoo kalena wararku waxay taminayaan in markii la qabanayay ay sheegeen in ninkani uu doonayay in uu bilaabo howlgalo iyo sidoo kale kulamo uu la yeelanayo ganacsatada halkaasi ku sugan ee magaalada Nairobi wararkan helayna waxay tibaaxayaan in sidoo kalena ay ka dambeysay kooxda Damul Jadiid xariga loogu geystay magaalada Nairobi gacantii midig ee Fahad waa Cabdiraxmaan Dheere sidoo kalena waxa wararku ay tibaaxayaan in ninkani lacag uu watay laga soo celiyay sidoo kalena uu doonayay lacagtaasi inuu geliyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya wararka ay hesho qubanaha TV ayaa tibaaxaya Cabdiraxmaan Dheere oo kamid ah raggii ugu muhiimsanaa hay'adda NISA sidoo kalena ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo markii dambe Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu ku diiday inuu tago magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland Soomaaliya ninkan oo kamid ah saraakiisha ugu muhiimsaneed hay'adda NISA sidoo kalena waxa uu xusul duub ugu jiray sidii uu ku soo noqon lahaa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kamid ahaa raggii ugu adkaan nabad iyo nolol intii ay jirtay 5 sano ee la soo dhaafay waxa uu sidoo kale aaminsanaa maquunin iyo sidoo kale in awood loo adeegsado nidaamka dimuqraadiyadda Soomaaliya balse haatan wuxuu dib ugu laabtay magaalada Addis ee xarunta dalka Itoobiya wararku waxay tibaaxayeen in saacado kooban lagu haystay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya sidoo kalena waxa markii dambe dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Kenya ay isku afgarteen ninka in lagu celiyo magaalada Addis ee dalka Itoobiya markaana haddii uu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu fashilmay kulan uu la yeelanayay qaar kamid ah gudoomiyaasha ururada siyaasadda ee maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kulan uu la qaatay ururada siyaasadda iyo guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa gabi ahaanba waxa uu ku soo ilaaday fashil iyo kulan aan laga soo saarin war murtideed iyo waxa la isku fahmay Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu hanqaltaagaya inuu dib ugu soo laabto maamulka Puntland sidoo kalena waxa uu doonayaa inuu jaranjaro ka dhigto
ilaa laga gaarayo doorashada ka dhacaysa magaalada muqdisho ee lagu hardamayo madaxweynaha Soomaaliya 2026 Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waxa uu hanqaltaagaya inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya mar uun balse waxa ka hortaagan olole iyo sidoo kale raggii ugu muhiimsanaa maamulkiisa oo uu ka mid ahaa wasiirkii ugu awoodda badnaa wasiirada maamulka Puntland waa Xasan Shire Abgaal waa wasiirkii wasaaradda maaliyadda oo uu xilkii ka qaaday sidoo kalena kooxdii dhisaysay isagu oo ay ahaayeen Aranjan waa ay ku kala tageen siyaasadda xilligan waxa ay limidoobayaan kooxda nabad iyo nolol oo ay kulamo ku yeesheen magaalada Istanbul ee cariga dalkaasi Turkiga wararka aynu ku helino magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxay sheegayaan inuu halkaasi abaabul ka socdo sidoo kalena lagu doonayo in awoodda lagu la wareego madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland sidoo kale kulamadani waxa yeelanaya qaar ka mid ah ururada ama xisbiyada siyaasadda ee halkaasi ka dhisan ururka Sincad oo hogaaminayo injineer Maxamed Khaliif Xasan Jabiye ayaa shuruud ku xigay doorashada golayaasha deegaanka iyadoo senator Cabdiraxmaan Faroole oo hogaamiye u ah urur siyaasadeedka horseed ku tilmaamay doorasho qof iyo cod ee Puntland in boob ay tahay sidoo kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu ku soo gambanayo sidoo kalena uu doonayo inuu awood ku sii haysto Puntland ninka haysto waa Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu doonayaa inuu jaranjaro ka dhigto sidoo kalena sidii uu ugu soo biiri lahaa ama uga mid noqon lahaa musharaxiinta ugu cadcad ee Soomaaliya 2026 ayuu ninkani doonayaa in uu ka mid noqdo musharaxiinta ugu cadcad ee doonaya xilka madaxweynaha Soomaaliya balse xilligan waxa uu wajahayaa hagardaamo siyaasadeed iyo sidoo kale culeysyo badan oo ugu imaanaya siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulkiisa markaan hadii eegno mid ka mid ah xildhibaanadii ka tirsanaa kudladii nabad iyo nolol waa xildhibaan Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul sidoo kalena waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ninkan waxa uu ka soo jeedaa ama sidoo kale lagu soo doortaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii ka soo galay kudladii Nisa ee saaxiibada dhow la ahaa agaasimihii hore ee hay'adda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ninkan oo mar hore warbaahinta ka sheegay in macawisleyda ay yihiin waxa lagu carqaladeynayo nidaamka Soomaaliya ka jira sidoo kalena waxa uu ku tilmaamay in ay yihiin maafiyo hadii al-shabaab ka xoreeyaan deegaanada gobolada Soomaaliya oo uu sheegay in iyagu naftooda ay ku habsan doonaan balse ninkani waxa uu la soo baxay wujitaa ka duwan isagoo lagu arkay inuu xiran yahay tuute balse waxa uu ka mid noqday xilligan ciidamada macawisleyda iyo kuwa dawladda Soomaaliya ee doonaya inay xoreeyaan deegaanada gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud ee Soomaaliya ninkan oo hore u aaminsanaa in macawisleydu ay yihiin maafiyo balse xilligan waxa uu sameynayaa wixii aragtidiisu aragti ka duwan sidoo kalena waxa lagu arkay social media isagoo xiran tuutaha ciidanka sidoo kalena warbaahinta uu la hadlana waxa uu sheegay inuu qayb ka yahay dagaalka uu cilaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena dagaalkan uu yahay mid looga xoreynayo deegaanada ay ka haystaan al-shabaab gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya dagaalkan oo hore uu cilaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka socdaa qaybo ka mid ah gobolada dalka qaybta ugu weyn oo xilligan ka socdana waa gobolka Hiiraan oo ay gaareen ciidamo gurmad u ah ciidamada ku sugan halkaasi wararkii ugu dambeeyay qubanaha TV-na xilligan waa lageynta